kulanti habboon idil ahaantiinba daawadayaal ku soo dhawaada Hal Hays Media barnaamijkeeni shilka fanka waxaynu daaha kaga rogaynaa fanaanada caanka ah Nasteexo Indho ayaa wadanka Mareykanka waxa ay ka dhigtay xaflad lagu maamuusay sanad guuradii Puntland xilligii la aasaasay waxaana kala qayb galay fanaaniinta cariga Mareykanka ku nool sida Hodan Cabdiraxmaan iyo kuwa kale oo fara badan Nasteexo Indho ayaa waxa ay casuumad ka heshay xildhibaanada laga soo doorto gobolka Minnesota ee Ilhaan Cumar oo waayahan dambe ku dhex jirtay Soomaalida kadib markii ay dhigeeda xisbiyada Mareykanka kala kulantay mucaarado xoog leh in lagu weeraro siyaasad ahaan iyo maamus ahaanba wararka ay baahiyeen wakaaladaha Mareykanka iyo website-yada caalamka ayaa waxa lagu daabacay in Ilhaan Cumar ay la saaxiibtay nin cadaan ah kadib markii ay furtay ninkeedii hore sida lagu sheegay wakaalada afka dheer ama wargeyska caanka ah ee Daily Mail arinta kale ee ugu xiisaha badan ayaa in Nasteexo Indho ay wacatay Nimco Joker oo ah gabar majaajilaysta Nimco Joker ayaana ku gacan sayrtay iyadoo sabab uga dhigtay dadka la socda ay inay heshiis ahayn balse Nimco Joker ayaana ku doodaysa in taasi ay gadaal hoose kala dhaxayso fanaanada caanka ah Hodan Cabdiraxmaan balse Hodan Cabdiraxmaan ayaana ka warheshay arrinkaasi waxaana ka hadashay barta ay Facebook ku leedahay Hodan Cabdiraxmaan ayaana sheegtay in wax dagaal ah aan kala dhaxaynin Nimco Joker arrimahan ayaa waxa ku soo aadayaan xilli loo dabaaldegayo sanad guuradii 12aad ee maamul goboleedka Puntland Nasteexo Indho ayaana dagaal hoose waxa kaga furnaa dhanka iyo wadanka UK iyadoo isku dhacsan yihiin Laki Xaaji Wacays oo warar xanaf leh ay isku mariyeen baraha bulshada haddaba daawade muran ka dhaxeeya fanaaniinta ma mid lacageedba mise waa mid arrimo kale ku salaysan daawada jawaabtiidu waa noo muhiim commentigana noogu reeb